عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed oo qaaliga ah dhamaan waxaan ka hadlaynaa weight loss-ka ama cayilka dhibaatooyinka uu geysto iyo faa'iidooyinka ay leedahay inaad iska dhinto cayilka ama aad weight lose garayso. يعني waxaad arkaysaan in cayilku dhibaato badan oo ku haayo ummadaha dhamaan qofka cayilan qaarkood xataa obesity barar qaar ahaan aragnay. marka waxaan ka digaynaa in aad cuntooyinka dadka qaarkoodna cunto la'aan baaba u keentaba cayilka. biyo la'aantu waxay keentaa cayilka, toxin overloading iyo jirkay ku aruurisaa waxyaalo badan oo يعني u sababa inuu cayil aan macquul ahayn galo sina aad u luus gareyn weyso mar haddii ay metabolismkaaga qaldamaan wax badan oo cayilkaaga dhimi kara ma jiro. walaalkay walaasha Soomaalida aheeday Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa mar walba inaan la dagaalano cayilka. Inaad dhinto faa'iidooyin badan ayaa ku jiro. faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah waxay yaraynaysaa khatarta caafimaad oo fara badan sida inay kugu dhaco sokorta, dhiig karka iyo high cholesterolka. intaba waa la socdo wadna xanuunka oo kale. waxyaalahaas oo dhan waxaa keena cayilka. marka cayilka waa yani asaga naftirkiisa iska cudur ah, caafimaad alla noogu wado. waxaa dhici karta inaad qaado wuxuu kaa hor istaagayaa inaad la dagaalanto cayilka ama aadan cayilin. inaad lumiso weight waxay kaa difaacaysaa khatarta ah inay sokor aad qaado oo type 2 diabetiga waxaa la dhaho ama nooca oo sonkorowga la dhaho because insulinta ma ku filnaan doonto jirka markuu cayilan yahay. marka hormoonkaasi oo activitygiisa aad u yaraynin mar walbaba la dagaal cayilka la dagaalankiisa. faa'iidooyinka kale oo aad ka helaysa waxay tahay maskaxdaada waxay heli doontaa enough circulationka ayuu aad iyo aad u caawiyaa inaad dhinto weightkaaga. waxay caawin doontaa inaad hesho improved brain function, yacni maskaxda oo si fiican miirkaaga juustasna jointska bainka gala iyadan waxaa keena cayilka. marka haddaad la dagaasho ood biyo badan cabto waxaa ku wanaagsanaan doona flexibilityga ama jointska ayaa xanuunka kaa yaraanaya. waxay kaloo dhuminta cayilku ay caawisaa ama weight lossku uu caawiyaa improved immune system, yacni